duqa degmada iyo ku-xigeenka duqa oo keliya ayaa xasaanad leh inta ay xilka hayaan. xubnaha kale ee golayaasha deegaanku wax xasaanad ah ma yeelanayaan waxaana loogu yeedhayaa xubno golo degaan mana bannaana in loogu yeedho xildhibaan. sidoo kale qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey farqad shanaad oo u dhigmaysa sidan. sidoo kale qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey farqada shanaad oo u dhigmaysa sidan. haddii duqa iyo ku-xigeenkiisa lagu soo eedeeyo lunsi hanti qaran, musuq maasuq, xulgudasho la'aan iyo